شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. dadka adduunka iyo ilbaxnimadu way ku kala duwan tahay jiilba jiilku ka dambeeyo xadaaradba xadaaraday ka dambayso aragtida quruxdu manay ahayn Maria ambifan mid nasiib badan iyadoo noolayd xilli dadka aan qurxoonayn aanay ka mid ahayn dadka farxadda haysta waana qisada ka dhigtay gabadha adduunka ugu foolxumada badan aynu dhageysano qisadeeda markaa kadib aynu eegno in ay magaca u qalanto iyo in kale waxay ku dhalatay Maria ambifan London sanadku markuu ahaa 1847 waxay ahayd ilmihii sideedaad ee reerkooda yaraanteedii waxa ay ahayd inuu qurux badan waxayna ahayd neeras 29 jirkeedii waxa ay guursatay nin iibin jiray ubaxyada oo la oran jiray Thomas Bifan waxay u dhashay 4 caruur isla xilligaas markay da'deedu maraysay 32 sano waxaa ka soo muuqday calaamadaha xanuunka aadka u xun ee la yiraahdo camlaqa isagoo astaamaha wajiga gabi ahaanba ku sameynaya isbedel iyo koritaan wajiga intaa wixii ka dambeeyay nolosha Maria way isbedeshay iyadoo ninkeedii Thomasna dhintay sanadkii 1914 iyadoo kaligeed ku soo hadhay caruurteedii waa ta ka sii darane muuqaalkeedii waa isbedelay waliba si aan dib u soo noqosho lahayn xanuunkaasoo kaga tagay arag oo daciifa madax xanuun badan waliba xanuun u dheer dhammaan laabatooyinka oo dhan deemihii way ku bateen xanuunkeeda awgeed shaqadii waa laga soo eriyay iyadoo aan cidna doonayn in ay aragto muuqaalkeeda foosha xun markay talo ku cadaatay oo gurigeeda wax beer lagu qooyaa aanu oolin waxay go'aansatay in ay ka qayb gasho tartanka iyadoo uga qayb galaysa gabadha adduunka ugu foolxumada badan iyadoo rajeynaysa in ay wax lacaga ka hesho caruurteeda dartood iyadoo u horeysa sharafteeda kaliya in aanay ubadkeedu baahan waxa ay ku guuleysatay Maria tartankii bahdilka ahaa iyadoo heshay lacag dhan $50 oo kaliya waxa ay ahayd tijaabo aad u xanuun badan marka loo eego gabadhan dhalinyarta ah laakiin waxa ay ku badbaadinaysay reerkeeda intaa wixii ka dambeeyay waxa ay geen jireen masraxyada dadku ay wax ku daawadaan iyagoo ku soo wareejiyay magaalooyinka Ingiriiska oo dhan iyadoo dadku ay ahaayeen kuwa xiiseynaya in ay arkaan gabadha lagu sheegayo in ay tahay gabadha adduunka ugu foolxumada badan leh Maria aad iyo aad buu qalbigeedu u gubanayay jirkeeduna waxa uu ahaa mid wada nabaro ah shuruudaha shaqadana waxa ka mid ahaa in ay in badan socoto si ay u arkaan oo ay u yimaadaan masraxa daawashada iyadoo lugaheedu ay xamili laayihiin socodka maalin walba joogtada ah haddana waxa kaliya ay u dhabar adeegaysaa waxa uu ahaa ubadkeeda sanadku markuu ahaa 1920 waxa kireystay nin la oran jiray Sam Gabarty si ay uga qayb gasho barnaamij uu dhigayo oo la oran jiray Dreamland barnaamijkaasoo ahaa indhasircaad halkaasoo intii dambe ay joogtay iyadoo u dhabar adeegaysa hadal xumada dadka iyo caydooda iyadoo ay caruurtu ku shidi jireen dhagaxaan iyagoo u arkaya in ay tahay bahal oo ay aad uga baqi jireen iyadoo ooynaysa ayay caruurta shiidaysa ku oran jirtay caruuray waan idin jecelahay waayo caruurtaydaad u eegtihiin laakiin waxay ula dhaqmi jireen sida inay tahay xayawaan oo kale markii dambe waxa loo wareejiyay Mareykanka gaar ahaan jasiiradda Kooli ilaa iyo intii nolosheeda ka dhinayd laakiin Maria waxay ku guuleystay inay ubadkeeda koriso waxna barto Maria waxa ay dhimatay sanadku markuu ahaa 1933 xilliga oo miisaankeedu uu ahaa 168 kilogram mid ka mid ah caruurtii Maria waxa uu yiri hooyaday marka ay noo keento roodhi annagoo gaajoonayna iyadoo habeenkii oo dhan ooyeysa oo leh waxaan dareemayaa inaanan u qalmin in aan noqdo hooyo wanaagsan ma in aan qurux badnaadaaba si ay dadku ii ixtiraamaan ama ii xushmeeyaan haddii ay jiri lahayd waxyaabo lagu qiyaaso quruxda bini'aadanka hooyaday waxa ay noqon lahayd tan ugu quruxda badan adduunka iyadoo wax walba u sameyn jirtay si ay noo daryeesho awgeed ilaa xilligan aynu joogno dadka badankooda waxaa ka dhiman dareenka marka la eegayo dhanka quruxda qalbiga ugu dambeyntii hooyadan dhibta soo food saartay waxa inoo cadeynaysaa in quruxda dhabta ay ka timaado qalbiga ee aysan ka iman dusha indhaheenu ay arkayaan daawada ma u malaynaysaa in ay tahay gabadha adduunka ugu falxumada badan fadlan fikirkaaga commentiga noogu reeb mahadsanid